habeen wanaagsan qodobada warkeena caawa waxa ugu waaweyn dulmaadyadii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi oo dib u bilowday taa oo ka mid ah heshiisyadii ay dhowaan gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka oo guddi u magacowday muxaadarada sheekh umal uu ku qabanayo magaalada muqdisho waxaana laga dhigay maalinta axadda ah ee toddobaadka soo socda allah u naxariistay waxaa masjidka isbaaysiga salaada janaasada lagula tukaday salaadii jimcaha allah u naxariistay almaas elman cali oo 20kii bishan lagu toogtay magaalada muqdisho iyo madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Sri Lanka oo ku dhawaaqay doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi jimca wanaagsan warkii oo dhameystiran dulmaadyadii tooska ahaa ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa dib u bilowday kadib markii heshiis ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya mareeyaha hay'adda duulista iyo hawada Soomaaliya mudane Axmed Macalin Xasan ayaa warbaahinta qaranka waxa uu uga warbixiyay bilaabashada dulmaadyadaasi Kenya iyo Muqdisho ka oo ahmiyadda u leh dalka ومعجنتين إذا عاد ريدو مقدشو لوانها وحاب لسعطان إن شعب الصومالية أي دبوين كوخابين ماريتان كمقالة وجير مركايوسي سعودان نيروبي هل كان سوءات مارسي دباتا بدن إكلا كل مجرين إيو فلايت كو كلها ديورد مركا هل كان كعبي مقدشو كنتم دقيقة يوسعون إسراء وجير هل سا أيها الجوغي وجير haddana 50 daqiiqo u soconaysay magaalada Nairobi markii hore tooska ay ahayd diyaaraddu waxay Nairobi u socon jirtay hal saac iyo bar marka dib fara badan ilaahay mahadii booqashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Nairobi waxa miraheedii ugu horeeyay noqday in dibkaas ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka faydo oo direct flight ugu horeeyay Muqdisho iyo Nairobi isaga duula وكلا تكاي جران كأجن عدة مقالة مقدشة ديورادنا ما أنت وحي كدم بها ستوسا أي وادي دونان مقالة نيروبي هي مقدشة توسا يسقط دور دونان سيدا أي نوشيجين دقينا بنك كينيا civilization كينيا سيدا نوشيجين ديورادنا كاي قبلنا كم جيران ديورادنا إني صامران مقالة مقدشة هدي أي رضان direct flight inay ugu duulaan magaalada Nairobi diyuuradii Muqdisho ka kacda laga bilaabo galabtay ma sii mari doonto magaalada Wajeer toosay Nairobi aadi doontaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay magacowday muxaadarada Sheekh Umal taa uu ku qabanay magaalada Muqdisho waxaana laga dhigay maalinta axadda ah ee toddobaadka soo aadan wasiirka dhalinyarada federaalka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye oo la hadashay TV-ga qaranka ayaa waxa ay sheegtay in muxaadarada lagu waday in ay maanta dhacdo dibna loo dhigay lana qabanayo axadda soo aadan waxaa la magacaabay guddi qabashada muxaadarada sheekheena Sheekh Umal oo ku qaban lahaa maanta magaalada Muqdisho guddigaas marka waxay diyaarinayaan qaabkii qabashada ay u dhici lahayd muxaadarada sheekha haddii Allah uu dal ogolaado marka dib baa loo dhigay liajli aaska marxuumada gabadheena Allah u naxariisto isbahaysiga ayuu salaada janaasada kula dukan doonaa haddii Allah uu dal ogolaado culumada ugu horeeya ka qayb galeysana janaasada iyo aaska haddii Allah awood la ogolaado muxaadarada marka maanta oo jimca sidaas dib loogu dhigay anoo ku hadlaayo magaca guddiga qabashada iyo qabanqaabada muxaadarada aan kamid ahay aniga oo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wadana Sheekh Nuur gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha Umar Maxamuud Maxamed Filish iyo dhamaan
hay-adaha amniga oo horkacayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed magaal xijaar haddii Allah awoodda la ogolaado muxaadarada haddii Allah awoodda la ogolaado waxay dhacdaa maalinta Axadda haddii Allah idmo waxaana lagu qabanayaa garoonka kubadda cagta ee Engineer Yariso Stadium haddii Allah awoodda la ogolaado marka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku nool waxaan soo jeedinaynaa in ay dhici doonto muxaadaradii Sheekh Umar haddii Allah awoodda la ogolaado oo maalmahan magaalada Muqdisho isagoo u yimid in uu ka qayb qaato gurmadka abaara hadii dadka Soomaaliyeed wax yeelaysay haddii Allah awoodda la ogolaado waxaan leeyahay jazakumullahu khayr. الله نحرسته وحا مانتا مسجد كاسبهيسيغي إسلام كسلاة جنازة لقلو كذا سلاة جمعها مرحوم الماس علمي ولباتنكي بشان لقود لي مقلدة مقدشو عمر حسن علي يسو كوبية dowladda Soomaaliya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u cambaareeyay dilka Almaas waxaana ay ahayd qof oo ololaya arrimaha bulshada ciidanka amniga Soomaaliya kuwa misooma iskaashanaya ayaa ka howlan baaritaano ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa sida uu dhacay falkaasi toogashada ah ee ku geeriyootay 20kii bishan marxuumad Almaas Elman Ali oo kamid ahayd dadka arrimaha bulshada oo ololaya isla markaana dilkeeda ay bulshada Soomaaliyeed intooda badan aad u cambaareeyeen kana xumaadeen shir wadatasho ah oo ku saabsan dib u habeynta arrimaha maaliyadda dalka ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda uga furmay wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada dalka Yusuf Kashmir ayaa warkani inoo soo diray shirka wasiirada maaliyadda ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda ayaa waxaa lagu hadlayay horumarinta arrimaha la xiriira hagaajinta iyo sar u qaadida habsimo socodka arrimaha maaliyadda dalka waxaana shirkan ka qayb galayay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug iyo gobolka Banaadir oo ka qayb galayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahadalle gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Dheere ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyay shirka wasiirada maaliyadda ee maanta ka furmay Kampala waxaan isku nimiday shir ka dhacaya wadanka Uganda caasimada Kampala waxaa isku yimiday wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee heer federaal iyo aniga oo ku matalaya gobolka Banaadir shirkan wuxuu wada socdaa shir ka dhacay Addis Ababa 14 September kaas lagu hadlayay in la mideeyo canshuuraha dalka iyo in cafinta deemanka lagu leeyahay Soomaaliya in laga wada hadlo runtii shirka waxaa laga wada hadlay ilaa 4 qodob oo muhiim ah oo ka tahay in la xoojiyo wada shaqeynta wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir labo in aan la siyaasadeen arrimaha maaliyadda dalka in dastuurka loo sameeyo baahida dhinaca maaliyadda in la ansixiyo habraaca maaliyadeed ee u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir shirkii wuu socdaa maanta ayuu noo bilowday oo ah 22 November wuxuu dhamaanayaa birito oo ah 23 November insha Allah biri waxa ka soo bixi doona qodobo la isku raacsiinay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shirkan oo daba socda shirkii 14 September lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa la filayaa in lagu soo saaro go'aano wax ku ool ah oo la xiriira maamulka maaliyadda dalka Yusuf Maxamed Macalin Kashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed caasimada Kampala Uganda diyaaradii ugu horeysay ee sida gargaar loogu talagalay gurmadka fatahaadaha ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho taa uu soo diray dowladda Talyaaniga warbixintan waxa faahfaahinay wariyeena Cabdullaahi Maxamuud Amiin Qorshe
dowladda Talyaaniga oo ka mid ah dowladaha midowga Yurub ee saaxiibada la ah Soomaaliya isla markaana uu kala dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo ku dhisan iskaashi wax wada qabsi ayaa ka mid noqotay dowladaha ka qayb qaadanaya gurmadka loo sameynayo dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen fatahaadaha webiga Shabeelle iyo Jubba ayagoo ka jawaabaya baaqi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa ay soo direen diyaarad gaar ah oo si gargaar isugu jira noocyo kala duwan safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde diyaaradan oo si toos ah uga soo duushay wadanka Talyaaniga waxayna siday gargaar isugu jira daawooyin noocyo kale oo faa'iido u ah bulshada ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaadaha webiga Shabeelle iyo Jubba Alberto Facchi safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya waxa uu sheegay in xiriir qoto dheer oo ka dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga tanna ay tahay mid ay uga jawaabayeen baaqa gurmadka markii aan helnay xogta la xiriirta fatahaadaha waxaan isla markiiba bilownay inaan ka shaqeyno waxaan u qaban karno iyo qaybta aan ka qaadan karno isla markiina waxaana soo gaaray codsi kale oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo ah inaan gurmadkaas ka qayb qaadano annagoo taasi ka jawaabayna ayaan hawshaasi qabanay xogaa yar ayay naga soo dahday gurmadka cilado farsamo awgood balse hadda waa kan xildhibaan Khalid Macu waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Talyaaniga ay kaalin mug leh ka qaadato mar walba garab istaaga shacabka Soomaaliyeed dowladda Talyaaniga iyo saad ogtahay iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeyo xiriir aad iyo aad maartay u qoto dheer ayaa ka dhaxeeyo taas tana muujinayso maartay tan waa midii hore waaye waxa ku xigi doono kaalmooyin kale oo daba socdo maartay iyo daraasado kale waaweyn oo la sameyn doono meesha laftirkooda ay dhibaatada ka dhaceen maartay oo Talyaaniga sida uu ballan qaaday gacan ka geysan doono waxaan rajaynaynaa ballantaas la qaaday inay ka dhabeeyaan maartay gudoomiyaha guddiga qaran ee gurmadka ahna wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Saciid Hamza ayaa ka gudoomay deeqdan dowladda Talyaaniga waxa uu sheegay inay ka caawin doonto wajiga labaad ee howlaha gurmadka dowladda iyo shacabka Talyaaniga ay soo gaarsiiyeen gargaarkan bini'aadanimada ee isku jiro agab daawooyin iyo qalab kale ee looga baahan yahay hadda waxaan ku jirnaa phase 2 phase 2 waa waqtigii recovery oo dadkii meelooda ku noqon lahaayeen si loogu helo xal waara waan u mahadcelinaa tan wax kale waxay xoojinaysaa xiriirka labada dowladood Soomaaliya Talyaaniga wilgood jiray deeqdan ayaa tii ugu horeysay ka timaada mid ka mid ah dowladaha midowga Yurub ayaa markii ugu horeysay waxay si toos ah loogu wareejiyay dowladda Soomaaliya halka markii hore la soo marin jiray hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho kulan loogu duceynayay Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kalaay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ka oo kamid ah akademiyad goboleedka afka Soomaaliga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa ka waramay warkan gudoomiyaha akademiyad goboleedka afka Soomaaliga Professor Maxamed Daahir Afrax ayaa ugu tacsideeyay guud ahaan qoyskii oo ka baxay Allah u naxariistay wakiilkii akademiyad goboleedka ee Koonfur Galbeed Professor Maxamed Cali Kalaay oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Beedhabo wakiilkii ama safiirkii oo kale akademiyad u joogay Koonfur Galbeed oo intii halkaa uu joogay wax badan ka qabtay oo waxqabadkii awalba oo maaragtay muxuu ahaa halkaa ka hayay ka sokow oo ay ka mid ahayd asaasidii iyo hogaamintii jaamacadda Koonfur Galbeed iyo muxuu ahaa kulano iyo maaragtay muxuu ahaa munaasabado iyo isxilqaan badan oo maaragtay uu samayn jiray ka sokow muddadii uu ahaa wakiilka akademiyada wax badan buu muxuu ahaa magaca akademiyada ku qabtay wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud ee dowladda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cusmaan ayaa isna u tacsideeyay qoyskii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kalaay maytaas aan diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan ahladii isku geeriyooday Professor Maxamed Cali Kalaay taasi gaar aan diray professorka yani taariikh dheer lana isbarashadan may bilowday 1971
mayna ahay gudoomiyaha kolleejka baydhabo ee dugsiga sare 2001 cali maxamed cali kalaay oo ah wiilka u dhalay marxuumka ayaa ugu mahadceliyey dadka soo qabanqaabiyey kulanka ducada ah ee lagu xusuusanayo aabihiis akademiyada aad ay ugu mahadsan yihiin odayga inta laga sheegay taariikh nololeedkiisa inta badan wuxuu ahaa qof waxbarashada iyo kusoo dadaala ama asoo dowladnimaha ka shaqeeyo ama shakhsiyan dabcan waxyaabaha qaar uu badanaa aan ku xasuusto waxaa ka mid ahaan doonto in mas-uuliyad qaas uu mar walba iska saaro dhanka waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona Cali Cabduqaadir Cali ayaa sheegay in Professor Maxamed Cali Kalaay uu kamid ahaa aqoon-yahanadii dalkan wax badan u soo qabtay loona baahan yahay la xasuusto waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid ah maalin kasta oo aan ku guda jirno howlaha warbaahinta wuxuu dhihi jiray waxaa tiin dad dhalinyaro ah dalkan adinka ayaa iska leh waxbarta kelmadaha ugu horeeya noo isticmaali jir waxaa kamid ah waxbarta dalkan adinka ayaa u hari doona adinka waxaa tiin generationkii ee soo koraya waxa la barto danta dalka dadkan ha laga fikiro Professor Maxamed Cali Kalaay wuxuu sanadkii 1953 ku dhashay magaalada Beedhabo wuxuu soo noqday wasiirkii tacliinta sare dowladda Carta waxa sidoo kale uu ahaa asaasihii jaamacadda Koonfurta Soomaaliya sidoo kalena wakiilkii akademiyada goboleedka afka Soomaaliga ee Koonfur Galbeed waxaana 8 bishii 10 ee sanadkan lagu dilay gudaha magaalada Beedhabo Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu dhagax dhigay suuqyada hilibka iyo qudaarta ee degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose Ruuxayga Axmed Cumar Mooye ayaa ka waramaya magaalada Marka hadda waxay ka soo kabanaysaa colaadihii dhowrka sano ee ragaadiyay isla markaana burburiyay kaabayaashii dhaqaalaha magaalada hadda waxay yeelatay weji ka duwan kii hore iyadoo mashaariic horumarneed oo dhowr ah laga hirgeliyay madasha dhagax dhigga suuqyada qudaarta iyo hilibka ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada dadka ku dhaqan degmada Marka iyo deegaanada hoos yimaada ayaa baahi weyn u qabay dib u dhiska suuqyada maamulka gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana hore dhowr degmo ugu soo fuliyay dhismo noocan oo kala ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in dhismaha suuqyadan bulshada ay wax weyn ku soo kordhin doonaan waxaan hadda sidaad u jeedaan dhagax dhigaynaa suuqii weynaa ee kawaanka ee degmada Marka iyo sidaas si la mid ah suuqa qudaarta ee ka soo horjeeda suuqan oo ah labada suuq ee ugu waaweyn ee degmada Marka looga ganacsado halkan waxaa ka xoogsada oo ka ganacsada dad xoogsata ah oo xoogooda ku nool waa meelaha dadka muruqmaalatada ah ay subaxii runtii ay ka shaqo bilaabaan oo galabkiina ay ka hoydaan waxaad arkaysaan dhalinyaro fara badan oo halkan ka shaqaynaysa iyo haween fara badan oo ka shaqeeya qaybta qudaarta sidaad u jeedaan labadan suuq waa laba suuq oo baabacsan sidii gudoomiyahaba uu warbixintiisa hore uu ku sheegayna muddo 30 sano ku dhawaada suuqyadan wax dayactira mihin ilaahay fadligiisa annagoo oo runtii isku duuban ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmaba oo hormuud noo yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo golihiisa wasiirada waxaan ku guuleysanay in aan u helno dib u dhis lagu sameeyo labadan suuq oo ugu weyn magaalada mana ahaan doonaan kuwa ugu dambeeya aan samayn doono intaba Marka ay haysato nabad annagana waxaan dib u dhis ku samayn doonaa meelaha arrimaha bulshada wax ka tahay noloshooda maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda ku howlan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose shacabka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa isbedelo horumarineed ka sameeyeen heerka waxbarashada ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha iyadoo ay shaqeeyaan goobaha ganacsiga xilliyadii habeenkii warbixintan soo socota waxa inoo soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani
qoraxdii ayaa soo baxaysa magaalada, dadkana waxa ay kala hayaan raadinta nolol maalmeedka, waxaana ugu badan kuwa u kala haya beeraha, iyagoona ka faa'iidaysanaya raxmadda alle ee roobka iyo biyaha durduraya webiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Jowhar. Beera tacbatada waxa ay ku hanwen yihiin xilligan in dalagii ugu badnaa ay soo saaraan, inkastoo fatahaadda webiga Shabeelle ay jirto. Haddaba xilligan dalagyada ugu badan ee ku beeran beeraha Jowhar maxay kala yihiin? Waa kan Yaquub Buul Cali oo ah khabiir dhanka beeraha ah, kana mid ah beera falatada Jowhar. Dadka waxay ku badan yihiin sida wax soo saarka bariiska, galleyda iyo sisinta. haddii ayna ka soo sheekaynay beeraha markan waa sidee xaaladda waxbarasho ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona koboc dhanka waxbarashada laga dareemayo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sanadihii ugu dambeeyay horumar ka sameynayay waxbarashada, iyadoo ardada wax waliba ay aadaan goobaha waxbarashada qaybahooda kala duwan. Halkan waa iskuulka Sheekh Xasan Barsane ee Jowhar, waxa uu ka mid yahay iskuulada soo hanaqaaday burburkii kadib, waxaana booqanay xilli iskuulka ay ka socotay bixinta casharada. isbeddelka waxbarasho ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan ka wareysanay Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud oo ah kusimaha gudoomiyaha dalada waxbarashada gobolka Shabeellaha Dhexe ahna maamulaha iskuulka Sheekh Xasan Barsane. waxaan weydiinay isbeddelka waxbarasho ee gobolka Shabeellaha Dhexe. in aan mahad ballaaran u celiyo aan ku hadlayo magaca dalada TV-ga qaranka National TV wanaaga iyo howlaha uu u adeegayo bulshada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. su'aashaad i weydiisay oo ah waxbarashada gobolkan waqtigii hore iyo waqtigan difference ama farqiga u dhaxeeya muxuu ahaa haddii aan wax yar ka dhaho waxaad la socotaan dalkan xoolaha dawlad markasi oo dhexe oo madax ka ah Maxamed Siyaad Barre. dawladdaas oo 91 markay burburtay waxbarashadii dalka habac weyn ayaa ku dhacay. dalka waxaa ka sameysmay muxuu ahaa dalada ahli ah, daladaas ayaa ahliga ayaa waxbarashada waday. maanta gobolkeennan Shabeellaha Dhexe in ay ka furan tahay iskuulo kor u dhaafayo 146 iskuul, yacni wax ka siiban akthar in ay maanta ay ka furan yihiin oo dadkii waxbarashada ay fahmeen. arrintaas waa guul. isbeddelka horumarineed ee Jowhar ma aha oo kaliya waxbarashada, caafimaadka iyo beeraha, sidoo kale waxaa jira koboc dhanka ganacsiga ah. ganacsiga magaalada waa mid sameynaya iminka horumar aad u ballaaran. goobaha ganacsiga ayaa ku soo kordhaya magaalada. waxaan la midnahay Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Madiino kale iyo Jowhar badeecada laga siiyo ee sheekh suuqa weyn ee Madiino ku yaal iyo tan Jowhar waa isku qiimo, waxa ay kala leeyihiin ma jiraan, farqiga waa isku mid. والله ganacsiga joogta Muqdisho waxay raadiyaan lacag aan caadi ahayn. anakana waxa waaye gobol waaye dadkii waa dad iska beeraley ah, marka costiga hoos aan u dhignay. marka markii dadka ay balance gareeyeen dad baa Muqdisho iyo kan Jowhar waa same. socodka dadka xilliyada habeenkii waa mid heerkiisu sareeyo. dadku waxa ay yihiin kuwa ganacsada xilli kasta, ganacsigoodana ku gaara habeenbarkii ama saqda dhexe. halkan waa foosterka ama salaxa xaafadda horseed ee magaalada Jowhar. sidaad arkaysaanba waxaa ku ciyaaraya dhalinyarada xaafadda kuwaas oo xilliyada habeenkii kubadda cagta halkan ku dheela. kuwani waa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, waxayna xilligan ay u fadhiyaan in ay ku shaahaan kafatariga horseed kana nastaan howl maalmeedkoodii ay bulshada ay u hayeen. waxayna isugu jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. magaalada Jowhar oo ay dadkeedu yihiin beero tacbato, xoolo dhaqato iyo waliba ganacsato, ayaa hadda magaalada waxaa ka socda isbeddel horumarineed oo ay dadka deegaanku ay sameynayaan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar. kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka bahda waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
sidii warkan inoogu haya wariyaheena Axmed Cumar Muuniye. madal ay iskugu yimaadeen ilaa dhowr jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha dalka waxa uu ku saabsanaa xoojinta xiriirka wada shaqeyneed oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Al-Um ee Muqdisho. gudoomiyaha jaamacadda Al-Um Sheekh Zayd Sheekh Abacali ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida loo xoojin karo wada shaqeynta jaamacadaha Muqdisho. sidee ay iskula shaqeeyaan jaamacadaha inay isdhaafsadaan aqoonta, inay isdhaafsadaan macallimiinta, inay isdhaafsadaan ardada Soomaaliya naftoodii inay cilmigiisa u saari lahaayeen. Soomaaliya Ilaahay nicmo u siiyay, nicmada waxay u baahan tahay cilmi lagu soo saari lahaa oo ugu horeeya diinta Ilaahay oo haddana sayniskii iyo biology iyo macro iyo micro iyo sayniska dhammaantiisii. maamulka faraca Istanbul ee jaamacadda Al-Um Maxamed Cajaan Al-Xadiid ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in kulankan noocan ah ay iskugu yimaadaan natiijadana ay noqon doonto sidii waxbarasho tayeysan loo heli lahaa. اليوم تم برعاية جامعة الأم العالمية في مقديشو اجتماع ملتقى الجامعات الصومالية الأكاديمي السنوي، حيث اجتمعت أكثر من 14 جامعة في هذه القاعة المباركة، وتم الاتفاق على أمور كثيرة من ناحية التعاون العلمي والإداري بين الجامعات. دكتور محمد عمر سيد بعلاوي gudoomiyaha daraasaadka sare ayaa tilmaamay in waxyaabo badan ay ka qabteen oo la xiriirta xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee jaamacadaha dalka. ujeedadana waxay ahayd sida sheekha doctorka uu sheegay in la isugu yimaado far kaligeedna fool ma dhaqdo, fiish lay tirta ay dhahaan. hadda fiish tiro anaga ma rabnee, waxaa rabnaa waji in la dhaqo, fool in la dhaqo, foolna hal far ma dhaqdo. wada jirkaasaan ku wada dhaqaynaa, wada jirkaasaan isugu imaanaynaa, wada jirkaasaan caalamka dhan horumar iyo wax walba aan kula qaybsan karnaa. marka waxaan rajaynaynaa biidni illaahi jalla wacala ilaahay cizigeeni iyo sharafteeni inuu noo soo celiyo. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. maamulka gobolka Mudug ayaa waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada ku nool gobolka Mudug oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. warbixintan soo socota waxa ay noo soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed. mashruucan oo lagu magac daray dhalin kaab isla markaana ah mid loogu talagalay in dhalinyarada gobolka Mudug loogu abuuro ganacsi si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka kala duwan sidoo kalena uga qayb qaataan horumarka dalka ayaa maanta waxaa si rasmi ah u daafuray maamulka gobolka Mudug ee Galmudug. mashruucan oo ay maalgelinayso shirkadda ganacsiga Amal Bank ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada, mas'uuliyiin ka socota Amal Bank iyo qaar ka mid ah bulshadii loogu talagalay inay ka faa'iideystaan. maamulaha Amal Bank ee Gaalkacyo Cabdinaasir Macalin Maxamed ayaana ugu horeyn ka warbixiyay mashruucan iyo ahmiyadda uu dhalinyarada gobolka u leeyahay. waxaan bishii saddexaad ee sanadkan aan ku jirno ku dhawaad 45 haweena oo reer Gaalkacyo aan magaalada Gaalkacyo ka sameynay amaahdaas in badan oo ka mid ah ama waxaan oran karaa dhammaantoodba maanta meesha waa fadhiyaan. amaantii aan siinana si wanaagsan bay iskaga soo ceshin una socotaa, ayagana ganacsigooda kor buu u kacay. qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb galay ayaa sidoo kale bogaadiyay mashruucan ay maalgelinayso Amal Bank. waxaan kaloo rabaa maanta wax kaloo lagu farxaa horteeda yaallo dhalin kaab. maasha Allah inay ogaayeen moodaa dhalinyaradu inay u xanjeeran yihiin markay inta iskuulka dugsiga sare ka qalin jabiyeen qaar jaamacadihii waayay oo hadday business yar helaan gelina jaamacadda dhigan lahaa, gelina shaqaysan lahaa. qaar jaamacaddii dhigta oo hooy canjeero isi weli aan ka bixin. waxa sababaya inay dhalinyaradu maxay ahayto ay la adeegsado, la askareeyo, inay qaab daran macnihii loo isticmaalo, inay tahriib aadaan, waa gacanta maran. maamulaha koonfurta iyo bartamaha Amal Bank Engineer Maxamed Abdi Abiikar ayaa isla dhankiisa sheegay ujeedka ay ka leeyihiin mashruucan isagoo xusay inuu qayb ka noqon karo badbaadada dhalinta Soomaaliyeed. Amal Bank waxay leedahay gool ama meel ay higsanayso. meesha ay higsanayso waxa weeye in ay noqoto bangiga islaamiga ah ee ugu horeeya Afrika. taana waxay ku imaan kartaa shaqo weyn oo uu bangigu qabto iyo dadka oo aad u aamina. hawsha aan maanta halkaan u nimidna taas ayay salka ku haysaa.
ugu dambayna duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre iyo gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayaa bogaadiyey mashruucan iyagoona xusay inuu wax weyn u tari doono dhalinyarada gobolka mudug oo ay saameeyeen sida ay sheegeen shaqo la'aan baahsan. midda koowaad waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga mahad celiyo amal banki adeegan ay u keentay bulshada ku nool deegaamadan oo runtii waa wax loo baahnaayo waa adeegyo casri oo wadamadu sida ay ku dhismeen saan weeye waxaan leeyahay amal baan aniga runtii saaxiib dhow baan nahay in badan aan ogahay bay shaqo ku qabteen waxaan u mahad celinayaa shaqada ay gobolka u hayaan inay sii laba jibaaraan waayo tii ay qabteen baan horey ogaa la socdaa waxtarka ay leedahay. cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo. ilaa 1400 oo qoys oo ah dadkii kamid ahaa kana barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa la gaarsiiyay raashin ka oo ka timid boqortooyada Sacuudi Carabiya. Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkan Beledweyne ka soo diray. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaaw ayaa maanta goobjoog ka ahaa deeq raashin oo soo dhiibay boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan. deeqdan loogu talagalay ilaa 6000 oo qoys ayaa maanta 1400 ka mid ah waxaa loo qaybiyay dadkii ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle ee deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne. Maxamuud Cali Xasan oo ka socday hay'adda Saacid oo fulinaysa hawshan ayaa ka hadlay waxa ay hay'adda Saacid ku leedahay doorka fulinta cunadaas oo ka kooban ilaa 6000 oo qoys maanta oo taariikhda 22 November ay tahayna 1400 oo qoys cunno deeqda ayaa halkan lagu soo gudbiyay taasoo loogu talagalay dadka reer Hirshabelle qaasatan Beledweyne. sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen waxaana uu sheegay in si aad ah loogu baahnaa gargaarkan oo maanta noo suuro geliyay inaan si degan ugu qaybino deeq raashin oo gaarayso ilaa 6000 oo qoys maanta qaybtooda ugu horeysay aan ku daafurnay dadkii ugu liitay ee dhibaatadu ay ku dhacday fatahaadihii waxaan alla uga mahad celinaynaa allihii noo suuro geliyay deganaantaas iyo nabadgelyadaas aan ku qaybinay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo boqortooyada Sacuudiga Boqor Salmaan boqorka Sacuudiga hay'adda OIC oo raashinkan ciidana maaragtay la soo marsiiyay iyo ururadii ayaguna fulinta lahaay sida Saacid iyo Saahil iyo guud ahaan cid kasta gacan ka geysatay hawshaan inay fusho oo dadkan dhibaatadu fatahaadu ay waxyeeleeyeen si nabadgelyo raashinkan oo ku gaaro cid kasta oo gacan ka geysata waad ku mahadsantihiin aan leenahay gaar ahaan waa u mahad celinaynaa ciddii deeqdan la soo baxday waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo diyaar waxaan u nahay cid kasta wax keentay inaan sidaan oo kale si nabadgelyo ula qaybino. Cali Guudlaaw madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa xusay in fatahaada ay saameysay deegaano badan oo ka mid ah Hirshabelle ayna u baahan yihiin in la gargaaro. waxaan rabaa inaan u sheego dhibaatadu intaa way ka ballaaran tahay sida wasiirkuba sheegay degmooyin badan ay fatahaadii saameysay sida Beledweyne Kuulo Burte Jalalaq Mahaday Jowhar ilaa balcad ay dhibaatadu saameysay dadkii beeraleyda ah dalagooda u baaba'ayay waxay u baahan yihiin gurmad ballaaran insha Allah waan rajaynaynaa inaad intaan gurmad ka ballaaran la gaari doontiin degmooyinka ay dhibaatadu ay soo gaarto fatahaadu ay saameeyeen annaguna insha Allah hadii la yiraahdo sidaanan wax idin la qaybi doonaa si nabadgelyahana dadka lagu gaarsiin doonaa cidii sadaqada la baxdana waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo aad iyo aad u mahadsantihiin. Ibraahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne qaranka xarunta dhexe ee Muqdisho وينجينتا أنيقو رحميس الجمعة يا إيدي وركي دين أقرين يجودهان أنيقين تيلا قيب قشيبة نولي كلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.